fadlan please share subscribe kusoo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So do welcome to Shake. As normally we always share the thing that is good for the community and myself. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno insha Allah waxyaabooyin saddex arrimood baan rabnaa inaan ka hadalno. saddexda arrimoodna waxa weeye mid kasta wuxuu u baahan yahay maxay tahay. haddii qofku ku yiraahdo raalli ahow maxaa loo baahan yahay inuu qofkaasi garanaysa inuu la yimaado. haddii qofku yiraahdo waan ku jeclahay, jacaylow muxuu yahay? horta jacaylku muxuu yahay? muxuu jacaylku u baahan? maxaa jacaylka lagu garanayaa marka qofkaas inuu garanaysa ama jacaylku muxuu yahay? mid kastana waa soo koobaynaa. raalli ahow qofka hadduu yiraahdo maxaa qofkaas inuu la yimaado loo baahan yahay. midda kalena waxaa is-aaminka. is-aaminow maxaa ma garanaysa looga baahan yahay ama qofkaa la rabaa in laga arko insha Allah. ka koobaad waxaan ku bilaabanaynaa is-aaminka. marka is-aaminow marka maxaad u baahantay? is-aaminow maxaad u baahan tahay? qofka hadduu yiraahdo qofkaas waan aaminayaa. aaminka aad qofka aaminaysay maxaad u baahantay sideedaba. qofka haddii qof aamintid maaragtay maxaad ma garanaysaa ku aaminaysaa. waxaan rabaa inaad maskaxda ka shaqaysiisid 3 second ka yar meelaa 15 second. waxa la wixii nida aad kusoo dhacaad u malaynaysa qofkaas inaad ma garanaysaay. qof haddaa aaminaysid maxaa loo baahan yahay? aaminku muxuu ku imanaya? yaa aaminku muxuu ku imanayaa? kale waxaan imanaya inaad waxyaabooyin ku fikirtay saan filayo. aaminku wuxuu u baahan yahay caddayn. buu u baahan yahay caddayn. it needs proof. buu u baahan yahay caddayn. buu u baahan yahay. aamin haddaa qof wax aaminaysid waa inaad ku aragtid akhlaaqdii, dabeecaddii. qofkaas ila qof fiican weyn akhlaaqdii inaad ku aragtid. haddii la qofkaas qof fiican qof caytamayo maana aragtay qofkaas waa qof wanaagsan ma aaminaysaa? may. waxaa u baahan tahay caddayn baa u baahan inaad aragtid qofka aragtid akhlaaqdiga. haddii la qofka wanaagsan asaana inaad ka aragtid akhlaaqdii baad u baahantay soo maha? taas u baahantay. haddaa qofka ma garanaysaa ku aragtid ii sheeg ilaahay inuu qofka ku aragtid waa inaad ku aragtid. haddii sida qof jaamacad ka soo baxo kale haddii la yidhaha qofkaas cilmi uu leeyahay shahaadadii uu ku tusaya in skill that he study maaragtay he will give you the paper. shahaadadii uu ku siinaya yeah. or any other place that he study ma garanaysaa whatever knowledge that he study maaragtay either skillkii baad ku arkaysaa xifraddii isagoo yaqaana ama waxaa ku arkaysaa proof of paper shahaadooyinkii so qofkaas waa caddayntii buu haystaa. marka is-aaminku muxuu u baahan yahay? caddayn buu u baahan yahay. is-aaminow waxaad u baahantay caddayn. waxaan ka hadlaynaa marka hadda mid kasta soo koobaynaa insha Allah. is-aaminow wuxuu yahay waan ka hadalnay. aamin the trust need what? proof buu u baahantay. proof. marka qodobka labaad waxaanu ka hadlaynaa raalli ahow. raalli ahow maxay tahay marka? raalli ahowdu maxay u baahantay? qofka hadduu yidhaha raalli ahow maxaa loo baahan yahay inuu la yimaado? yaa qofka hadduu yidhahdo raalli ahow maxaa la rabaa qofkaas inuu la yimaado? yaa waxaa la rabaa qofkaas inuu la yimaado talow maxay tahay? maskaxda ka shaqaysii. raalli ahow qofka hadduu ku yidhaahdo
baahan tahay inay meesha maxaa loo baahan yahay meeshaad timaado okay waxaan umanayaa inaad iska ka shaqaysiiseen raallihooda waxay u baahan tahay isbeddel in isbeddel aad la timaado qofkaasi you need change qofku inuu isbeddelo weeye iska beddelo wax alla wixii ma garanaysaaye uu qofka ka raali gelinaya qofaa qof caayayay qof nafta u keenay uu bulogaraynaya whatever reason it is dhibaato qofku hayay ama bambi uu qofku been u sheegay wixii qofkaasi inuu iska beddelo weeye isbeddel buu u baahan yahay oo wixii sameynay mar dambe qofkii dhibin haddii ma garanaysaa uu dad wax ka qaadanayo nafta u keenay waxooda u daayo ka toobad keeno oo wixii mar dambe ku noqon wixii ka dhacayna oo qofkii ka qoomameeyo ka xun yahay wuxuu sameeyey sababta qofka haddii ka xun yahay wuxuu sameeyey wuu iska daynaya laakiin haddii se wixii ka xumayn ma garanaysaa waxay ka noqonaysaa un afka keliya raalliho nin raalliho niyo wallaahi iska raalliho niyo berrina wuu wadaa hawshii waxa la wixii kule sorry yaa waan ka xumaa qofka hadduu sorry yidhaahdo wixii uu ka xumaado qofkii uu ka raali gelinaya mar dambana kuma celinayo laakiin haddii soo qofkii ogeynba ama kala jeclaynba wixii afkay ka noqonaysaa waqtigaa isagaa unbuu alla ilahay rabaa inuu get away with just wanna get away with and he say about I'm sorry soon as meesha ka soo wixii hore kasii bilaabaya soo qofka hadduu yidhaha sorry muxuu u baahan yahay hadduu yidhaha raalliho muxuu u baahan yahay isbeddel buu u baahan yahay qodobkan ku yara dheeraanna waa kan marka jacaylo marka maxaa u baahantay qofka hadduu yidhaahdo qofkaas waan jeclahay jacaylo marka muxuu u baahan yahay ama maxaa lagu garanayaa qofkaas inuu jecel yahay maxaa lagu garanayaa maxaa loogu qiraya qofkaas inuu qofkaa jecel yahay ama aad ku ogaanaysaa qofka ku jecel see ku ogaanaysaa yaa qofka ku jecel calaamadaha lagu ogaadaa maxay tahay marka yaa jacaylow maxaa tahay horta waa maskaxda ka shaqaysiiseen baan umaanaya meelo badan baad maskaxda geegeyseen jacaylow waxaad u baahan tahay jacaylow he waxaad u baahan tahay ficil baad u baahan tahay ficil it need action buu u baahan yahay jacaylku action buu u baahan yahay qofka jecelshahay waa ka walwalaysaa waa xiriirinaysaa waa daba taagnaanaysaa loyal baad u tahay waa action baad samaynaysaa hadduu kaa xanuunsado waad dhaqaalaysanaysaa wuxuu cuntadiisii nadaafadiisii ka warhayntiisii dawadiisii waxay dhan baad waa daba taagnaanaysaa hooyadu markay uweedkeeda jecesha waa aragtay way dhaqaalaysanaysaa way magaranaysaa laakiin naagtan ilmaheeda jeclayn maxay samaynaysaa dee waxa weeye way ku qallafsanta ilmihii way magaranaysaa wixii ilmihii xaq u lahaa kama fakarayso action wax alla waxay go-aan ku gaarto ay samaynayso waxay ka fakeraysaa ilmaheeda maxay dhibaato u gaarsiisanaysaa ilmaheeda ninkuna sidoo kale hadduu ilmihiisa jecel yahay waxyaabooyin badan buu u dulqaadanayaa wax badan buu u dulqaadanayaa hadday xaasku ku xuntay wuu dulqaadanayaa ilmihiisaas siisan ma garanaysaa gurigaas ooga burburin maskaxdooda iyo mustaqbalkooda dantooda ayuu ka fakerayaa sacrifice buu samaynayaa yaa wuxuu samaynayaa wuu u dulqaadanayaa taxajud buu gelinayaa aan caadi ahayn sida ilmahaas hooyo iyo aabba isla jooga ku hadallada ka ilaalinaya qaylada ka ilaalinaya ilmihiisa degan buu la hadlayaa saaxiib buu ka dhiganayaa wuxuu noqonayaa garanaysaa maskaxduu ka dhisanaya physically financially wax alle wuxuu awooduu ka dhisayaa ilmihii tarbiyaddii buu ku dhisayaa wuu u tahajudayaa waxbarashadoodu ku dadaalayaa meelba meesha ka fiican tahay nabadoodu ku dadaalaya caafimaadkoodu ku dadaalaya hooyaduna sidoo kale hadduu oduu ku xun yahay oo nin qallafsan ku yahay way dulqaadanaysaa inta ilmaheedaas ka korayo ilmaheedaasi markay ka koraan oo alla ilaahay ay ogaato inuu ilmaheedu u koray bay odayga laad hoosta ka gelinaysaa waxaa la wixii laisku hayay aan kala nasanay dhahaysaa intaan soo marnay
libax aan kala nasano ay dhahaysaa hooyada wanaagsanna maxay samaynaysaa saasay samaynaysaa isma degdegayso waxa weeye qof ma garanaysaa degdegaya ma noqonayso naag ilmaheedii looyal oo habay noqon ilmaheeda markasta dantiisa eegaysaa marka jacaylku muxuu u baahan yahay sida hadda gabar baa maanta dhowr qofaa igala tashada arrimaha noocan oo kale oo ku saabsan xiriirada alxamdulilah rabbil caalamiin qofkii ugu dambeeyey waxay tiri ninbaa hadda ka hor qabi bay tiri gabar baan isku dhahayn awlaad kale waan dhali waayey markaan arkay inuu garanaysa meela fiirinayo oo xoogaa aan ka dareemay inuu guurdoon yahay waan u yeedhay waxaan ku dhegaysanayo guursaan ku yidhi walaalow guursaan ku yidhi ninkii wuxuu haye khayr allah haye buu yidhi shoo waxbaa u diyaarsanaa dhag uu guursaday mar illa markuu guursaday ninka odagaa wuxuu sameeyey 4 bilood agteeda ma soo istaagin bay tiri ima soo wicin ima soo xiriirin macnaha su-aasha waxaan ku keenay gabadhi su-aal bay weydiisay qofa igala tashatay waxay tiri ima soo wicin ima xiriirinin ma garanaysaa xitaa telefon ima soo dirin agteeda ma soo istaagin iska daa xitaa biilkii xitaa biil ima siinin ijaarkii xitaa war ijaarkii ma iska bixisa xitaa ima soo dhihin wax igaga tegana ma jirin bay tiri marka yaana warka ugu daalin meesha waxaa ka dhacday maxaa ii dhibataa ka dhacday maxaa ii dhibataa ka dhacday waxay tii ninkii markii dambe sidiisa sheekadiisa u socotay 4 bilood markay dhaaftay buu isoo wacay asalaamu calaykum see tahay waxaan ku weydiinayaa ma xasuustaa war asalaamu calaykum hayda ii warro fiicanoo haddaan soo socdaaye la soco kaasay tiri haye miyada waxaa ka tiri ilaha ku soo aruuriye haye soo fiican khayr alxamdulilah soo socdaa ninka 4 bilood iga maqnaa isoo wicin isoo xiriirin isoo salaamay xitaa iska daa intaan bal ku go xitaa ay dhihin baa guriga iga soo galatay isoo wartay 2 saac 3 saac 4 saac markii la joogo buu yidhi allah caanahan waxaan u geynayaa reerkii guriga kale waan kuu soo noqonaya inta saa u fiiriyay bay tiri waxaan ku yidhi walaalle caanahaagana sii qaado yaa gurigaa kalena ha ka soo noqon waraaqdeedana halkaa ii dhig bay tiri fur bay tiri walaal khayr allah ku siiya cadow kala xaa ninkii sidii ku kartigay marka waxay tiri ninkii wuxuu baryahan aad bay isoo wacay marka aniga sheekada maxaan ku keenay marka waxaan ku yidhi marka halkaa ii marinaysa waxay tiri arrintan ayaa jirtay tiri marka hadda i haysata ninka saasaa na dhex martay ninkiina hadda baryahan dee uu igu soo noqday ima soo xiriirin jirin aad buu hadda baryahan isoo xiriiriya haye marka aniga maxaa iga rabtaa baa markaasi tiri maxaan ka yeelaa ninkan 3 su'aalood baa marka weydiiyey aan ka hadlay 3 su'aalood baan weydiiyey 3 su'aalood markaan weydiiyey jacaylku muxuu u baahan yahay ficil buu u baahan yahay waan ka hadalnay calaamadaha lagu garanayo waan ka hadalnay raallahooda maxay u baahan tahay raallahooda waxay u baahan tahay isbeddel in qofka la yimaado waxaa la weydiiyey khaladaadka sameeyey uu ka xun yahay mar dambana ku noqonin waxaa iska gooy buu u baahan yahay change buu u baahan yahay isbeddelo buu u baahan yahay aaminku muxuu u baahan yahay caddayn buu u baahan yahay in lagaa arko wixii lagugu aamini lahaa nin dadka dhaco tuugo maalinka saxaafadaha u dhaco gurigaaga inta soo geysid ma aaminaysaa inuu nabad gelinayo waa inuu ku xadaya adigana marka aamin wax kasta aaminkii in la arko waay marka hadalka waxaan ka wadaa iyadii waxaan ku yidhi horta intaas u baahan su-aalaha markay ka jawaabtay waxay kulli intii badnay kamay kulli mid kasta mee waxyaabooyin ku dhudhow ka shanqaysay laakiin hadalka waxaan intaas 3 arrimood aamin wuxuu u baahan yahay in lagaa arko wixii lagugu aamini lahaa caddayn buu u baahan yahay muxuu u baahan yahay jacaylku muxuu u baahan yahay ficil buu u baahan yahay haddii qofku wax jecel yahay waxa weeye
wicitaankaaga xiriirintaada ma garanaysaa dhaqaalaysigaaga ku danqashadaada danahaaga ka shaqaynaya adigu danaheeda qofka danihiisa ka shaqaynaysa ceebahaagu asturaya qof dib waa taqaanaa ficil buu u baahan yahay ma fahantay raallihoodana waxay u baahan tahay waan ka soo wada hadalnay oo waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay isbeddel marka gabadhii intii markaa ka uga sheekeeyay waxaan ku yiri walaal adiga ninka intaa iga sheegtay un baan ka arkaa baan idhi ma fahantay talada ay weydiisana waxaan ka qaban kara ma jirto sababta ninkii ma aqaan maxay aaminku wuxuu raallahooda maxay u baahan tahay isbeddel ninkii inuu isbeddelay wuxuu u sameeyey oo ka xun yahay ma aqaan ma ninku awal jacayl ma jirin baan jeclahay baa idhi hadday calaamad saas tahay qofka hadduu qof sahay ma dhihin sababta qofka inuu jeclaa oo inuu isbedelay ma ogin may fahantay laakiin jacaylku qofku wuxuu u baahan yahay hadduu qofka jecel yahay walaalow oo nin gabadha jecel yahay duusan xanuun kala imanin qofka hadduu qofku jecel yahay 4 bilood kama aamusan isku magaalo degan yahay isagoo lacag kaga tegin waxba kaga tegin wuu ka dhaqaajiyey gabadh biilaayay wada noolaayeen ma fahantay 4 bilood soo xiriirin maalinkii bishii afraadna uu soo wacay markay dhammaatay kowdeedii labadeedii uu yiri naabal haye soo fiicnado waan soo socdaayo markuu yimid 2 saac 4 saac markuu joogana alla caanaan xaafadii kala geenaya waan ku imanay uu yiri qofkaas awal danaysin buu kula joogay dan buu kula joogay dan buu ku watay gabadha dantii uu ku watayna baahideedii waa ka baaday oo qof kale ayuu helay marka qofkan marka qiimo lama lahaanayo anigu saan aaminsanahay qofka hadduu dan ku wato qofka dood calaamaha qofka dadka doonta ku watan waxaa lagu yaqaanaa cis iyo sharaf badan markasta kuuma hayo xoogaa waxyaabooyin badan oo ama hiil ama hoo ama magaranaysa aad oga baahnayd tiison buu garanayaa waa danaysta weeye waxay hadba saad adigu ugu furfurantay ama ugu rontay kuguma roonaanayo waa danaysta qof kastaa wuu garan karaa haddaa meel wada aadaan oo dan aadaysaan oo isla socotaan meeshaadu ay ka sokayso wuxuu rabaa tiisa in lagu horumariyo rabaa tiisa haddaa soo dhamaysidna wuxuu ku dhahayaa an xaafadeeda igee ku dhahayaa meeshiina waa maraysaa niyo aniga igee soo noqo u imo meeshaada xaafadeeda ku dhahayaa meesha gee aniga soo noqo xaafadeeda igee ku dhahayaa ma fahantay kuuma danqanayaba oo ma dhahayo niyo qofkan maadaama maxaa kasoo lugeynaysaa haddanta wada dhammaysana ku dhihi maayo tiisan buu eeganayaa waxa garatay maaha marka hadalka muhiimadiisa waxa weeye qofka gabadhii marka waxaan ku yidhi walaal anigu ninkan raallahooda waxay u baahan tahay isbeddel qofka inuu isbeddelay ma aqaan inuu ma garanaysaay wixii uu sameeyey ka xun yahay ma aqaan adigunba intaa kaa bartin weeye adhi kuma dabaabi karaa ninkan waxay tiri may taas raallahu wuu yiriye ma aaminaa kaasaan is aaminkuna wuxuu u baahan yahay caddayn wixii aan ku aamini lahaa qofka kama arkin caddayn baa loo baahan yahay aduu caddayn ma ka haysaa maxaas dhihi kartaa oo ku aamini kartaa ninkan waa isku noqonaynaa waxaan idhi waxaad ku aamini lahayd ka aragtay baan idhi kaasuu yiri maye telefoon baan ka ala hadlaa bay tiri marka walaa anigu waxa weeye ninkii inaan dulmiyo ma rabaa idhi ilaa haddana mana aqaan ninka waxaan hadda ku sheegana ma aqaan baan laakiin ilaahay baa adiga kusoo daystay ilaahay baa magaranaysaa waxa kuu fiican iyo waxa kuu daran yaqaana salaatu istikhaaratuku ilaahay la tashaacay weligaa yaallahan hadduu qofku waraysto oo wax dantiisa ku saabsan oo noloshii ku saabsan hadduu kaa waraysto walaal waxaa tiraa istikhaarayso ilaahay la tasha dheh kuma qadaysid marka ilaahay taladiisa kuma qadaysid waxaa tiraa marka salaada dhamaysad ducooyinkaaga aqrisatid la imanaysay istikhaarada markaad tukanaysa la imanaysay timaadid niyadaada nadiifisid ilaahay toos oo la hadashid u sheegatid magaranaysa taladaada waxaa tiraa haddii hawshan khayr iyo ta ilaahu qalbigayga ku xooji arrintan qofkan qalbigayga ku soo celiya hawshii inaan raba firfircooni iyo magaranaysaa inaan hawshii galo ilaahayo magaranaysaa igeli firfircooni igeli iyo niyad inaan meesha arrintii u hayo iyada ahay aad marka ilaahay kala tashanaysa
hadday baawur tahay hadday shaqo tahay haddii wax tahay haddii guur tahay haddii qof aad baratay tahay qofkan haddii aan fiiri qofka keliya inuu ku anfacaya maaha inaad aduguna anfacaysid qofka inaad anfacaysid oo farxadiisa iyo noloshiisa nolol wanaagsan ka dhigaysid keligaa maaha selfishly ha ducaysan weligaa haddaan qofka aanan dhibi doonin dulmin doonin saa u ducayso أنا قف هذا هقول هدان قلي وحير إلى قف كاس هدان دلمن دون قلبي يسحقي أن دلمن دون ومستقبل كدعوة عين أنا أوجه إلى مجران سأقول حنيو أنا قف كان قف نورش مستقبل إله يا ربي يسهل بالو قد عيسى أنا كنت عيسى قف كان لو قد وحنت علينا ساس ساونا أقسم بها لو قد عيسى سالفش اللي أنا يا ينفع عيسى يا أنفع عيسى هذا قف كان أنفعين بقى qofka rabaa anfacay ba adu soo ku anfacayo laakiin adu ma anfacaysa waxyaabooyinka ducada xitaa selfish qasi ganaasa daniista xitaa loo ducaysto marka waxay si daacad u ducayso naftaada iyo naftiisa baad u hadlaya ilaahay bari arintan ilaahay ma ganaasa hadii khayr kugu yahay ku sahlaya marka maanta waxaan ku kala faa'iideysanay wax kasta wuxuu u baahan yahay hadii aad wax qiyaasanaysid arrimaha ka dhax fiiri dadka xiriirada iyo ku jira magarasa arrimaha nolosha iyo raba inay dhistaan arrimahan waa the key waa furihii weeye noloshaada saddexda arrimood qofka haduu ku yiraahdo raali ahow wuxuu u baahan yahay wixii uu ka raali qof ka raali gelinay inuu marka koowaad ka magarasa uu ka xun yahay sameyntiisii inuu magarasa qofkii isbedel buu baahan inuu san qofkii wixii ka xun yahay kuna noqon doonin qofkii wixii ka haro وحين أكشن كيس مثلاً أولاد كل علي مركز رعال أو كل حيو بحوي رعال أو حسمه هدو قفك مجراسة مركو إيشك هدو قفك آمنس إنه وحي أكو آمنس إذا أنا أكو أركتا يعني trust me هدو كل هذا قفك واحد كو آمنس إن هدو تصالحان أو كلا سفر دير بجلسة قف كان مركز مجال إسلام رئيسان باوركم كلك حنيا marka magaalada isla mareysaan waxa aragtay inuu marba jid galayo gaarigu ka adkayba oo jiirada markuu galayo oo ka siinay uusan gaariga ka adkay hadhow daalanta waa seexanay qofkan misku haleynaysid gaariga uu ma dhiibisid kaligaa ku rafaad safarkii ay ugu dhacday wax badan qof marka koowaad waxaan xasuustaa wiil waan adlaana deganaan jiray jidba meel baan soconaa 25 daqiiqo inta waxaan ku tagay yaa waxaan ku tagay ilaa mari babaadaan ku jira ma alla marka u sheegtid wax ku dhac maadiga ma aniga wax sheegis how arrogant is that bal qabka iyo daraas ar war maadiga aniga wax sheegis baawur baris kule inta samad xakasi wareele aniga taqoon yahay aan ugu din baan ahaa meesha ama nadig halkaan nadig ka deganay sanad qom buu ahaa hadaan raa idig wiigti hagaas la qab weyn buu hadda ka koran libaax ka soo baxay marka ogaay marka maadiga ayaa aniga wax sheegis bidii ninkaas waxa weey ilaahay khayr siiyo war maadiga aniga wax sheegsid wuxuu igu daray falfal xumo iyo aflagaad igu daray iyo cisla'aan maalinkii wixii ka dambeeyay qofkaas waa u gaabiyay liifada u gaabiyay isfahanku wax wanaagsan weeye isfahanka qofka la soconaysa isfahanka inuu ixtiraam iyo respect inuu ku qorayo waxa tay ku ogyahay wanaagsan ku qiimeysanayo marka sidayna caadiga ahayd ma fahanteen saddexda qodob ka fiirso markaas أهمك عدينتس جعلك فعلك وباهية love need what action وباهية trust وحين وباهن ده proof وباهن تاي وحي كله شراء خير الله هذا الشيء ها سيدنا عادي هيد وحي سمع سلامنا بلا مرشك سمرت كسميس دي وحنا نكسر نفط هذا ونكسر عاد جراسك عندك كويسة كسي سعو هدي مجراسة نفط واتحان نفط سيدي واتحان إلهي مجراسة هنوها نونية وح مجراسة أي حنكو سيودي سيدي بقى يا وحنكو قلتنا ليا إنا سكديس سكده خير الله سكده فضلا بليز share subscribe
kusoo dhawow